wasiirka hore amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa baahiyay xog uu ku sheegay hanti dadweyne taas oo uu sheegay inaan la qarin karin isagoo ciwaan uga dhigay Xundubey iyo Rooble Masar iyo Imaaraadka Carabta. qormada wasiirka hore amniga ee Soomaaliya ayaa u dhignay sida tan: xaaladda Masar kadib markii aan dareennay in dowladda Soomaaliya ay dhaqaale la'aan xooggan hayso ayaan ra'iisul wasaare Rooble u tagay. waxaan ku yiri walaalow, dhaqaale la'aantan kuma sii jiri karnee aan wadamada Carabta ee 4 sano ee la soo dhaafay aan wax dhaqaale muuqdaan nasiin aan albaabada u garaacno. Carabtiina wataas heshiisay ee arrimaha gacanka Carabtu way isku dhamaadeene yaanan kaligeen meel cidla iska fadhine. waxa uu igu yiri waayahay ka soo shaqeey. waxaan go'aansaday inaan Masar ka bilaabo. waxaan la hadlay rag furayaasha Masar inay hayaan aan ku ogaa. arrinkii Masar waa laga soo shaqeeyay waana lagu guuleystay. markii uu arrinkii bislaaday isaga ayaa toos ula xiriiray oo uu na dhinac maray hawshiina waxa uu u dhiibtay dad ay isku jifan yihiin. markii aan ogaaday afgambigaasi waxaan u tagay Rooble. waxaan ku iri waaba arkay dhaqankaaga ee maxaad Masar ula tagi rabtaa. waxa uu ii sheegay waxyaabo yaryar oo aanan ku qancin. waxaan ku iri walaalow, dal walba waxa uu leeyahay dad fura oo ay xantamaan ee maad qof ama laba wadatid oo dadka Masar fura. arrinkana hore u soo bisleeyay waa uu diiday. waxaan mar dambe xog ku helay in markii uu Masar tagay lagu yiri waxa aad rabto mataqaanida mar dambe noo imo adiga oo yaqaana waxa aad rabto. isaguna marnana lama wadaagin wixii uu socdaalkiisa iyo kuwii kale ee faraha badnaaba kala soo kulmay. Imaaraadka Carabta markii uu ku fashilmay arrinkii Masar waxa uu sii waday arrinkii Imaaraadka annaga oo rajo ka qabna in uu isgaran doono sidii hore oo kale. waxaan ku guuleysanay in aan xiriirka Imaaraadka soo celinno. 2 jeer ayuu Rooble la kulmay danjiraha Imaaraadka Soomaaliya u fadhiya. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliyana way joogtay fadhiyadaasi. waxaan ka codsanay Imaaraadka inay dhaqaale ugu deeqaan dowladda Soomaaliya waana ogolaadeen. wax shuruud ah oo ay nagu xireen ma jiraan oo aan ka ahayn inaan raaligelin ka bixinno arrimihii lacagta ee hore looga xayiray. markii hawshii la isku afgartay waxaa la isku raacay in aan anugu tago Imaaraadka oo aan gogol xaar u sii sameeyo isaguna iga daba yimaado. habeenkii Talaadada ee 7 bisha 9 2022 ayaan aniga iyo Rooble ballanay oo uu ila dardaarmay. hayeeshee Rooble waxa uu mar kale go'aansaday inuu afgambi kala sameeyo oo uu arrinkii u dhiibo dad jufadiisa anigana dhabar jibin uu igu sameeyo. maalintii Arbacada ee 8 bishan 2022 waa maalin kadib markii uu ila dardaarmay wuxuuna qaatay go'aan sharci darro oo uu leeyahay xilkii waa ka qaaday. waxaan isku dayay dhowr jeer inaan la xiriiro oo aan weydiiyo sida ay wax u jiraan. marnaba telefoon igama qaban ilaa haddana isma aynan maqal. marka laga reebo dad waxgarad ah oo uu ii soo diray oo uu ku yiri Xundubey igala hadla oo qoraalada ha joojiyo. intaa kadib dadkii ay isku jufada ahaayeen ayuu u diray Imaaraadka Carabta si ay arrinkii ula wareegaan. ma aqaano halkii arrinkaasi ku dambeeyay. asaga waa Rooble ayaa laga rabaa halka uu arrinkaasi ku dambeeyay. sida la wada og yahayna xogaha socdaaladiisa oo dhanna jufadiisa ka baxsan lama wadaago. sida wax u dhaceen oo kooban waa sidaasi. xogtani waa hanti dadweyne lamana qarin karo ayuu yiri wasiirka hore ee amniga gudaha Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo qoraalkan ku baahiyay bartiisa Facebook. si aad mar walba ula socoto wararkeena iyo muuqaalada cusub fadlan ku soo biir boggeena Yuusuf Cabdishire oo ka mid noqo saaxiibadayda sida joogtada ugu xiran. mahadsanid.